السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو برنامج كيرني قولها بوغتا بوغا عن تضباط كان مرتدى أنهي وحا قري دكتور عبدكريم بكار أو شيخ عالم دلك سوريا شيخ عبدكريم بكار الله دوره وشيخ بعد دير كل دين إسلامك إيو علومتا الله حريرتا سيدو كله دكتور عبدكريم بكار وحاد أو waxyaabaha la xiriira qoyska iyo hagida qofka muslimka ah buugga aan maanta akhriyayno waxa la dhahaa Dhabbaha qoyska muslimka ah waa mabadi iyo aragtiyo lagu hagayo qofka muslimka ah buuggan wuxuu kamid yahay silsilad oo sheekhu ugu talagalay in qoyska muslimka ah lagu hago oo u bixiyo tarbiyada wanaagsan ama tarbiyada rashida gundhiga buugga oo sidoo sheekhu sheegay uu ugu talagalay in uu soo saaro qoys إسلام أو في فرعون أو عافمات قبا مسك أهان يجر أهان يقول استعل وحكي كوبين هاي أفر قيبود قيبت كوبات وحالها أركتي قفكم وحا وربوا محي قفكم مسلم كأه قويس كاستي ويلي قبل إسبرتي أو حرير يا شيء أو إسجور سدي أو قويس يا شيء كدمني الله أبدسيه وحا أي روان أي نلاش كدوني هرتوا محي لبو wuxuu ka sheekeynayaa qiyamka iyo value-ga qofka muslimka ah qaybta saddexaad waxa la dhahaa xiriir waa xiriir ka dhaxeeya labada qof ee isqaba ilmaha ay dhalaan iyo dadka ku hareeraysan iyaga ee qaraabada iyo tolka iyo ehelka iyo qabiilka iyo dawladda iyo islaamkaba intaba xiriirka qofka kala dhaxeeya arinta u dambaysa waxa weeye muhiimadeena maxay tahay horta shaqada laga rabo adiga inaad qabato waa maxay inta uusan guda gelin sheekhu wuxuu leeyahay waxa jira qodobo iyo arrimo keenaya in qofku soo rabi uusan u noolaanin waxa kamid ah saboolnimada qofkii haduu sabool yahay oo uusan waxba gacanta ku haynin reerna leeyahay culays qoysna saaran yahay dabeecadiisa caadiga qofkii uu ka tagaya ama culays badan baa ku dhacay qofkii dulqaadka ka yaraanaya sadarteed wuxuu aad ugu dhirin doona buug intaan in qofka muslimka ah uu ugu dadaalo soo wax u qabsan lahaa soo u shaqaysan lahaa haduu shaqo fiican haystana soo wax u kaydsan lahaa mustaqbalka caawiya ta kale faqriga soo hosgalaysa waa shaqo la'aantii oo qof aan shaqo haynin oo culays reerna saaran yahay masruuf laga rabo biil laga rabo dhaqaale laga rabo shaqo la'aan ah waxyaabaha loo sheegay oo dhan sidii la rabay inuu qaato adkaanaysa ta saddexaadna waxa weeye xitaa qofka haduu shaqo hayo wuxuu hayaa shaqo gacmeed oo gacan laga qabanayo aad u adag ninkii waa fundi wax buu dhisayaa guri buu dhisayaa ama dhar buu gadayaa ama raashin buu karinayaa ama khayad buu ka shaqeynayaa hotel buu ka shaqeynayaa qofkii waxa gacanta laga qabto adag buu ka shaqeynayaa sadarteed guriga markuu tago kama gaaraba inuu macruur la hadlo ama dumar la sheekaysto ama wax sameeyo haday gabadhu shaqaysan waa sidoo kale kama gaari qofkii asagoo daalan buu guriga tagaya oo seexanaya marka xiriir la'aan baa halka ka dhalanaysa saddexda qodob buu marka hore intuusan buugga bilaabin sheekhu noo soo gudbinayaa cutubka koowaad ee buugga oo sheekhu bixiyay aragtida uu bixiyay wuxuu kaga hadlayaa qoyska aan rabno horta waa qoys noocee ah okay qoyska aan u baahannahay ma leeyahay muuqaal lagu garto ama maxaa laga rabaa qoyska koow wuxuu leeyahay waa qoys islaamku uu marjic u yahay markay isguursanayaan markay isguursadaan markay ubad dhalaan marka ay nool yihiin ubadkooda wax baranayaan markay iyaga wada hadlayaan waa in islaamku uu marjic u noqdo oo qofkan markii uu islaamkii ka dhigto meel uu ku laabto markuu ka dhigto islaamkii wax xaga markuu ka dhigto waxa hagaagaya xiriirkiisa uu ilaahay la leeyahay kadib waxa hagaagaya xiriirka uu la leeyahay dadkii sababtoo qof walba wuxuu siinaya waajibkiisi sadarteed waa bini aadam baa leeyahay khalad badan baa laga dhacaya ya dadkii ka dhaci kara ama ka dhacaba qofku marar qaba qaasoo iimaankiisa hoos buu dhacaya buuggan sheekha qoray waa sheekh caalima oo diinta islaamka aad ugu baacdheer aniguna waxaan ahay dadka aaminsan in islaamku wax walba marjic u noqdo qofka in islaamku yahay sida ugu fiican ee loo noolaan karo ee qofka bini aadanka hay kara sadarteed dhibaato badan oo haysata hadaan diinta u noqono oo diinteena aan ku dhaqanno khilaaf wax badan oo maanta dhib u hayso naga yaraan laha taa macnaheedu ma hadii aanu say tahay aan boqolkiiba boqol ugu dhaqmo ma aha qofka khalad uu leeyahay khalad uu naga dhaca laakiin si guud diinta islaamku ay noqoto waxaan haga socodkeena hadalkeena sheekadeena wax qabadkeena jaceylkeena nacaybkeena waa inay diin islaamku ay naagto marka qoyska aan rabno koow horta waa qoys diinta islaamku ay hagto koow waxaan niri waa inay noqoto waa qof ay islaamku ay hago inuu noqdo talabaad waa in ay noqdo qoys labada qof ee reerka mas'uulka ah hooyada iyo aabaha iyo caruurtaba lagu barbaariyo in adduunkan uu yahay wax la marayo oo laga tagayo
inta la joogo in loo shaqaysto laakiin adduunka uma qalmo inta la joogo in qof la naco ama qof loo xanaaqo ama qof la xasto ama qof la dilo ama qof la caayo ama qof nimco ilaahay siiyey loo qoori waayo uma qalmo maalmaha la joogo waa maalmo yar si faraxsanow si fiican u noolow waxa aad qabanayso dhan waxaad ka dhigataa in adiga aad dadka caawiso oo aad dadka wax tarta mooyaane inta adduunka aad ku nooshahay ha ku mashquulin qof bini aadana inaad dhibtaa ku mashquulin ha murugoonin sababtoo ah bini aadam baan nahay naf baan leenahay mashaacir baan leenahay dareen baan leenahay waa murugoonayna laakiin waa inaad ogaato adduunka inuu yahay daar aan lagu waaraynin oo laga socdo saa darteed wax kasta oo noloshaada culays ku ah ama noloshaada dhib ku ah iska fogee qofka bini aadanka walaalka ah u jeclow inuu horumar gaaro qofka walaalka ah la rab wanaag la rab farxad murugada nac cabsida iska daa marka waa in qoyska lagu barbaariyo in adduunkan maadaama uu yahay adduun la marayo oo aakhiro loo gudbayo in adduunkan si farxada loo noolaado wax wanaagsan laga qabsado dadka wax loo taro dadkana dhibka laga daayo sababtoo muslimka qofka muslimka waa qofka afkiisa adinkiisaba ka nabad galaan dadka islaamka ah ta saddexaad waxa weeye waxyaabaha uu ilaahay xaaraantimeeyey waxay keenaan dhib dembi kasta oo aad gasho haddaad qof xamato ama aad qof disho ama aad zinaysato ama aad dhib geysato ama aad wax dhacdo ama qof muslima ama qof bini aadanaba aad xumaan u geysato way kuu soo laabanaysaa dhib kasta ood geysato way kuu soo laabanaysaa darteed waa inay noloshaada u ahaato nolol ka fog waxyaabaha khaladka ah ka fog hadday noqoto daroogo hadday noqoto waxay doonay ahaato waa in noloshaadu ay noqoto inta aad awoodo bini aadan baa tahay laakiin inta aad awoodo waa in noqoto nolol toosan oo qof bini aadan aad dhibaynin adigana aad isdhibaynin nolol waa in noqoto hadaf leh oo hadafkaaga uu yahay inaad intaad nooshahay si fiican u noolaato farxad ku noolaato wax qabsato ilaahayna ku xirnaato qodobka afraad waxaa weeye maslaxadda qoysku waa maslaxadda ummadda marka adiga aad mas-uuliyad qaado aad aaba tahay ama hooyo tahay ee aad dareento in ubadka adiga aad maanta dhashay eed haysato ee aad korinayso haddii aad iyaga hagaajiso oo aad wanaajiso oo aad waxbarto oo aad diin islaamka aad ku barbaariso oo dhaqanka wanaagsan ku barbaariso oo inay dadka kaalmeeya aad ku barbaariso oo sadaqada aad ku barbaariso oo runta ku barbaariso waxaad ogaanaysaa inaad ka qayb qaadanayso dhismaha ummad bad qabta oo wanaagsan laakiin ilmaha ka soo baxa ama ubadka ka soo baxa guri aan edeb lahayn ama aan akhlaaq lahayn ama aan islaamku hagin ama xitaa qiyamka iyo akhlaaqda bini'aadanimada aysan hagin oo in been la sheego caadi tahay in qof laxanta caadi tahay in dhibaato la isu geystay ay caadi tahay tarbiyadaas ilmaha ma noqonayso tarbiya sax ah oo ilmaha meel u hagta ma noqonayso sidaa darteed qoys kasta waa in dareem mas-uuliyad ah in ay asaga naf ka saaran tahay markaad labadan qof ee maanta isqaba ay isjecel yihiin oo isku faraxsan yihiin oo ubadkooda si fiican u korsanayaan waxay ka qayb qaadanayaan in ummad wanaagsan oo bad qabta oo caafimaad qabta oo si sharaf leh u nool in la hela ka qayb qaadanayaan marka qofku waa inuu mas-uuliyaddaa dareensan yahay waa in dhankaaga aan ummadda laga soo gelin oo aadan korinin ama aadan barbaarin ama aadan dhalin qof akhlaaq xun edeb daran dadka dila dadka dhaca dadka xumeeya dadka aflagaadeeya bini aadanimadu dhib ku haysa waa inaad dhalin leh waa inaad aad dareento inaad mas-uul ka tahay ummaddan aad mas-uul ka tahay waa inaad dareento qodobka shanaad waxaa weeye caruurtu waxay leeyihiin gafaf iyo khaladaad uu waqti ku sixi doono ha caayin ha garaacin su-aalahooda uga jawaab khaladkay geystaan cafi si fiicanna ula xiriir waxyaabaha inaga dhibkan haysta waxaa ka mid a caruurteen waxaan rabnaa inay u noolaadaan 8 jir war caruurtan waxay leeyihiin waqti ay marayaan waa inay caruurnimadooda qaataan waa inay ciyaaraan waa inay qoslaan waa inay kufaan waa inay kacaan waa inay boqol su-aal ku weydiiyaan su-aashooda uga jawaab si fiican ula sheekayso waxaad arkaysaa ilmo yar oo hooyadii iyo aabihiiba ay nool yihiin oo ay joogaan oo oon la sheekaysanayn ama hadduu soo ag fadhiisto la cayrinayo la burinayo arkaysaa waana khalad qofkan ilmahan waqti wax uu hadda khaldayo waqtigaa sixi doona saa darteed ilmahaaga si fiican ula dhaqan su-aal kasta oo ku weydiiyo adoon jirka isgelinayna ama ilmihii nacaynin ama aan ku faraxsanay ilmihii ha uga jawaabine su-aal kasta oo ku weydiiyo si qalbi furan oo af furan oo farxad ah uga jawaab xidhiirka naga dhexaysa yuu noqonin xiriir cabsi ah yuu noqonin ha noqdo xiriir wanaag iyo farxad iyo aabanimo iyo jacayl ha dareemo ilmahaaga wax kasta adiga ha kuu sheegtaan meesha ay dad kale u sheegan lahaayeen adiga ha kuu sheegtaan qodobka lixaad waxaa weeye waqti adag baa lagu jiraa soona socda ilmahaaga u diyaari si aad ugu diyaarinaysaa ilmahaaga kow horta waa inaad u sharaxdo adduunka ay ku nool yihiin waa inaad u sheegto waa inaad u dirto ood geyso waxbarasho fiican oo wanaagsan waa inaad u dadaasho taa macnaheedu waa maxay waa inaad dhaqaale ahaan aad dadaasho oo si fiican u shaqaysato oo wixii kusoo gala aad meel dhigato ilmahaaga aad si fiican aad wax u barto waxaa lagu jiraa adduun maanta adduunka isdhex galay xilli waxaa lagu jiraa adduunka o dhan uu noqday hal qol hal shaashad saa darteed ilmahaaga waa in aad marka hore sii wacyigeliso waa inaad ugu talagasho inay ilmaha ku noolaan doonaan wadci taadii ka duwan
ka degdeg badan ka orod badan waxyaabaha dadka dhumin kara ee khad ka saari kara hadday noqoto darooga hadday noqoto akhlaaqda xun hadday noqoto waxbarasho diid waxyaabahaas oo dhan inay hadda ay ridda guriga ay taagan yihiin waa inaad ogaato oo ilmahaaga waxaa dhan waxaa ka xiga inuu wax kasta oo xun arko hal mar oo click wax ku sii ka xigta saa darteed waa inaad ilmahaaga maskaxaan u diyaariso nolosha ka horeysa waa in qofkii caruurtii guriga ka baxaan iyagoo fahansan waaqici laakiin markaan ilmaheena la sheekaysanayna ama aan la hadlayn ama aan diyaar xataa inaan su'aalada ka jawaabno seen ilmihii nafsiyan ugu diyaarin karnaa waxa adduunka ka socdo seeba ilmihii annaga marjic ugu noqon karnaa wax kasta oo ka sheekay noo weydiin karaa waxaan u baahannahay in aan dib isugu noqono oo aan haddaan dhahay Soomaali aan ilmaha yarka ah ee aan dhalle ubadkeena inaan siino jacayl inaan siino farxad in ay nagu faraxsanaadaan waa laga maarmaan waxa ka mid ah qodobada inaan qofkii aan xumaan ka malayno hadallada ama dhacdooyinka ama falalka dhacayana aan si qalada u fasirno qodobka ugu dambeeya waa maxay mashaakilkeenu waa gudaheena dadka ma aha muxuu taas ula jeedaa waxaa looga jeedaa dhib baa ku haysta ama mushkilad baa kula soo xaadirtay qof kale aad u saaraysa cutubka labaad oo ah qiyamka iyo akhlaaqda ciwaankaas wuxuu isweydiinayaa sheekhu qoys muxuu qoyska kaga fiican yahay waa un laba arrimood sidoo sheekha soo gudbinayo ta koobaad waxa weeye iimaanka iyo qiyamka ay qoyska haystaan qoyska maxaa haga waxa haga diinta iyo tahaarada iyo xiriirka labada qof ee isqaba ay caruurta ka dhaxaysa waa xiriir diinku ku saabsan waa reer run jecel waa reer deeqsi ah waa reer isjecel waa reer noloshooda oo dhan diin ay ku dhisan tahay saa darteed markii qofka noloshiisa diin ku dhisan tahay akhlaaq ku dhisan tahay edeb ku dhisan tahay sababtoo diintu waxay ku faraysaa inaad si fiican u shaqaysato waxay ku baraysaa in caruurtaada jeclaato waxay ku baraysaa inaad mas'uul qaado waxay ku baraysaa in xaaskaaga aad jeclaato waxay ku baraysaa inaad ninkaaga u roonaato oo raaliyo u ahaato waxay ku tusinaysaa haddaad cunug la dhalay tahay inaad waalidka ixtiraamto qofka weyn ixtiraam qofku inuu qofkeen u naxariisto yacni waa reer qiyamka diintu ay noloshiisa oo dhan ay hayso reer kale uu ka fiican yahay qodobka labaad waxa weeye kaasunba hoos imaanaya qiyamkaas si ay dadku u daneeyaan qofka gurigiisa markuu joogo ilmihiisa wuxuu u sheego ilmihiisa sidee bay dhaqanka wanaagsan ee diinta ah ay u qaataan sidee buu qofku marjic uga dhigtaa iyo meel uu u laabto dhaqanka suuban ee islaamka dhaqan waxaa jira bini aadamnimada ka dhaxeeya oo aadanahu dhan aaminsan yihiin oo runtu ka mid tahay oo qasnimadu ka mid tahay oo waxyaabo badan ka mid yihiin saa darteed wax kasta oo akhlaaq ah in lagu kala horeeyo oo dadkan caruurta loo tababaro in iyagu intay wax qabsadaan ay dadka islaamka iyo bini aadamka wax u qabtaan taasaa lagu kala horeeyaa sheekhu wuxuu soo qaadanayaa dhowr qiyam oo ay tahay inay reerku ay ku sifoobaan ta koobaad waxaa weeye inaan khayr niyeysano oo qalbigeenna xumaanta ka bixino oo aan sadaqaysano oo aan waxyaabaha iska wax u qabsada ah ee ficilka khayrka ah aan adigana baratid caruurtaadana aad baratid inaad qof kasta oo bini aadan la jeclaatid caafimaad horumar dhaqaale wanaagsan iyo aqoon fiican inaad qof walba wanaag la jeclaatid sababtoo ah risqiga aad leedahay cidna ma qaadanayso caafimaad aad leedahay cidna ma qaadanayso wanaag iyo sharaf aad leedahay cidna ma qaadanayso saa darteed risqiga ilaahay wuu weyn yahay saa darteed qof kasta waxaad u timanidaad la jeclaataa inuu ilaahay siiyo wax wanaagsan waxaa ka mid ah qofkii inuu wanaagga jecel yahay xumaantu dhan neceb yahay waxaa ka mid ah inuu qofkii dulmiga neceb yahay cadaaladana jecel yahay waxaa ka mid ah karaamada aan leenahay iyo mabaadideena inaanan marna ka tanaasulin mabaadideena diinta ah iyo akhlaaqda iyo edebta inaanan marnaba ka tanaasulin waxaa ka mid ah hadalka wanaagsan hadal wanaagsan oo fiican oo dadka farx geliya lan hadalka wanaagsan waxaa la dhahaa waa furaha qalbiga qofka markaad hadal wanaagsan ku dhahdo waan ku jeclahay waad fiican tahay horumar baad gaaraysaa si fiican baad u baastay waa lagu ammaanayay nolosheeda waxbaad ka bedeshay yacni qofka markaad hadal fiican u sheegto qofkii wuuna sii ziyaadayaa sida gaariga markii lagu shubo shidaalka uu awood u yeesho u dhaqaaqo iyo hadalka wanaagsan qofka bini aadamka u dhaqaajiya saa darteed hadalka wanaagsan lacag kuguma fadhiyo qiimo kuguma fadhiyo xil kasta dhihi kartaa qofka hadal wanaagsan dheh qofka aad jeceshahay maanta ee noloshaada ku jira ee wax ka bedelay haddaad maanta dhihin waan ku jeclahay ama waad wanaagsan tahay ama waan kugu faraxsanahay ama noloshayda qiimaad u leedahay goormaad dhahaysaa markuu dhinto markuu xanuunsado ma maruna kuu baahnayn maya maanta dheh hadda markaad muuqaalkaa daawato ku bilow hooyada aabaha waalidka caruurtaada xaaskaaga ama ninkaaga yani qof kasta oo noloshaada saameyn ku leh u sheeg inuu noloshaada qiimo ugu fadhiyo oo noloshaadana wax ku biiriyey cutubka saddexaad wuxuu kusoo qaadanayaa xiriirka iyo sida saameynta wanaagsan ee xiriirku ku leeyahay qoyska kow wuxuu soo qaadanayaa in uu qofka dareemo mas'uulka ah hooyadii aabihi ay dareento xiriirka uu la leeyahay qoyskiisu inay tahay xiriir uu la leeyahay ilaahay seebuu ilaahay u la leeyahay mar kasta oo uu waajibaadkii uu ilaahay u diray ka soo baxo hadduu nin yahay inuu reerkiisa
مسؤول كان نقضه أو مصروفه أو نلاش هذا إلى عليه هدي هويته هنا عروت هذا يدريش أو إنك كذا عليه أو نقطه هدي عروره هنا أي والدك بحر أو نقضان إلهي بيرالي قليل marka ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo xigtada iyo xigaalka adigu aad leedahay aad xiriiriso oo ku sadaqaysato oo hal wanaagsan ku dhahdo ilaahay baad iyaad raali gali sababto ilaahay silatu rahimka waa waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado in aanan dadka ka filan qodobka labaad waxa weeye in aanan dadka ka filan wax weyn aan ka filanin waa waxyaabaha dadka niyajibiya qof baan noloshaada dhan ku xiraysaa waxa aaminsan tahay inuu dadka ku geenayo khaladka koobaad ee qofkii galo adigoo dhan waad niyajibaysaa sheekhu wuxuu ku amrayaa in haddii aad tahay cunug la dhalay ama aad tahay xaas gabar la qabo ama aad tahay ninkii reerka lahaa in aad noloshaada inta badan aad isku daydo in aad dadka ka kaaftoonto adigu aad wax qabsato adoo dadkii jecel oo adigu wax siinaya laakiin inaad dadkii aadan ka filanin in noloshaada dhan ay bedelayaan tusaale ahaan waxyaabaha furankan waxaa ka mid ah qofkii wuu guursanayaa wuxuu aaminsan yahay nin baan ahay waan guursado waxaan aaminsanahay markaan guursado in nolol wax dhib kasta iyo haysa uu hal mar dhamaanayo in dhar la iga dhaqayo raashin la iga karinayo guri la yani afka raashinka la iga gurayo wax walba la siinayo waxba iga khaldamaynin baan aaminayaa guriga markaan tago waxaan u tagayaa gabar dareenkeeda leh shaqadeeda leh ehelkeeda leh ihtimaamkeeda leh waxyaabaha ay danaysa ay leh oo laga yaabo in dadka ay kala duwan yihiin marka koobaad ba dadkii xilkooda dhamaanaya gabadha waa sidoo kale waxay daawanaysaa filin waxay daawanaysaa musalsal waxay aaminaysaa inuu jacaylku yahay inaan bal isku dhacayninba oo aan la isla hadlayn oo aan la isxumeynin hal khalad ka horeeyay waxa ku baa waa ifur sababtoo marka hore waxay dadka iska maleynayaan iska tawaqacayaan yaa wax khalad ah mar walba wuu imaanayaa khalad laakiin maxaa lagu saxaa in la isjeclaado macnaheedu ma aha inaan isku dhicin in la isjeclaado macnaheedu waxa waaye in khalad markuu dhaco sida loo saxaa jacaylka keenaysa yaa cadeyn karta jacayl cadeyn karta iyo in la israbo iyo ixtiraam sababtoo markaan adiga qofka xaaskaaga ama ninka ku qaba isku dhacdaan haddaad isu tanaasushaan oo khalad isu sheegtaan iska qancisaan oo isjeceshiin haddii laga khaladku baa lagu kala tago dee wax jacayl ma jiro qoys baa leeyahay khalad u dhacaya ama ilmaha ka dhaco ama ha ka dhaco waalidka ka dhaco waxaa loo baahan yahay in la cudur daarto qodobka kale waxaa weeye qoys wanaagsan waxaa asal u ah laba qof oo isjecel waalid isjecel caruurtay dhaleen caruurta kale way ka soocan yihiin ubadku markay ku koraan guri jacayl iyo farxad iyo isqadarin iyo is-ixtiraam iyo isu nugloon iyo isu dhimrin iyaguna taasay bulshada ula tegayaan hadday guursadaan iyo hadday iskuul iyo hadday jaamacad dhigtaan waxa ay gurigooda ku arkeen ee gurigooda ku baraagareeyeen ee hooyadoodii aabaheed ku arkeen ba caruurta samaynayaan gabaray caruurtaada aabahaad jeclow ninowna caruurtaada hooyadood jeclow ixtiraam hortaada ku dheh ammaan qodob kale waxaa weeye labadii qof ama qoyskii meesha deganaa khalad baa dhacay qofkii wuu cudur daaran waay khalad ka galay qof kale waa inuu cafiyo sababtoo nolosha waxaa la rabaa inay socoto innaga waxaan rabnaa inuu ilaahay na cafiyo dembigeena dhaafo innaguna waa inaan dadka khaladka naga galay aan cafino oo dembigeena dhaafto nolosha in la isku adkeeya ma aha noloshu way sahlan tahay way qurux badan tahay way fiican tahay waxay u baahan tahay laakiin dulqaad saa darteed waa inaan is cafino marka habeenkii qof kasta oo adduunka ku nool cafi iyo masaax baad iga tahay dadka ku dheh adigana markaa qalbiga degan baad ku seexanaysaa ood ku noolaanaysaa dadkuna way ku jeclaanayaan qodob kale waxaa weeye in waxyaabaha lagu kala duwan yahay la isku ixtiraamo hadday gabadhu madow adna aad jeceshahay buluug keeda ku ixtiraam kala duwanaanshaha haddaan la isku ixtiraamin oo aan laisu soo dhawaanin markii guriga la isugu yimaado ee la isguursado labadii qof aragti bay kala duwan yihiin saa darteed sanad walba waa in dadka isu soo dhawaadaan rabitaanku isu soo dhawaado waxay gabadhu jecleed oo ninku qayb ka jeclaado waxaad wiilku jeclaa ay gabadhu jeclaato marka wixii lagu kala duwanaadana la isku ixtiraamo gabadhu waxay leedahay nolol gaara reer ka timid nolol gaara ka timid sidoo kale ninkoo kale qofka inuu marka milmo adig kugu muhiim waxa ah in ixtiraam oo daxdiina joogo labada qof markay is ixtiraamaan bay ubadkooda ixtiraam ku noolaanayaan marka kale waxaa weeye in la wadaago nolosha cibaadada iyo waxada guriga xiriir ma leh dadka waxba wadaagaan hotel buu guriga ogyahay wuxuu ku leeyahay guriga hotel ka dhigin inaad samaystaan jadwal aad caruurta iyo idinku aad wax ku wadaagtaan aad waxa laga wadaa in xiriirka reerku uu joogo laakiin uu guri u ahaanin hotel inuu guri u ahaanin soo hosgelaya xiriirka soo hosgelaya in la isnaqdiyo oo la isdhaliilo la jecel yahay ilmahaaga waa inaad ku barbaarin karto inuu kuu sheegi karo in waxa jira dhabta kuu sheegi karo ilmaha inuu kaa cabsanin ilmaha in asagoo wax ku faraxsan ku dhigi karo aabba arrintaas saasay ani ila tahay 10 jir ahaado 20 30 ha ahaado caruur aan lagu korin cabsi labadii qof waa in iyagoo isjecel kala arki duwanaan karaan
qodobkaasna waa qodob muhiim ah qofka hadduu ku dhaliilo ama wax ku sheego ha u qaaday inuu ku neceb yahay ama uu ku dhibayo laakiin way u qaadato in qofka soo ku jecel yahay inuu fikirka uu qabo adiga ku soo gudbiyo caruurtaada ku dhiirigeli inaysan noqonin munaafiqiin aysan noqonin ay noqdaan dad waxa ay rabaan ama ay masiin sheegi kara ilmahaaga ku qasab inuu adiga wax aad rabto wax uu rabo ku sheego waxa uu banaan ku sheegay iyo wax adiga ku sheegay isku mid noqdaan ilmaha ku dhiirigeli laakiin intuu adiga ilmaha been ku sheego banaankan uu run ku sheego taas ma fiicno ilmaha ku dhiirigeli in wax wanaagsan sheegaan qodobka u dambeeya oo ah shaqada noo taala iyo muhiimadda inaga noo taala ee maanta qoyska laga rabo wuxuu ku soo koobayaa 3 arrimood ta koobaad waxa weeye in caruurtaada aad u diyaariso nolol adag sababtoo qayb horena soo sheegay noloshu waxay u socotaa dhan adag bay noloshu u socotaa inaad u sharaxdo adduunka maanta lagu nool yahay iyo suu yahay iyo suu u socdo iyo dhibaatada taala iyo qofka muslimka ah ama bini aadamkaba si ay waxyaabaha nolosha ka ridi kara adduunka ugu badan yihiin waa in aad u dadaali karto oo aad mustaqbalka waxyaabaha ay u baahan yihiin reerkaaga waa inaad ku dadaasho sababtoo ilmahaagu waxaad rabtaa inay si fiican wax u bartaan waxaad u baahan tahay ilmahaaga inay caafimaad ku noolaadaan waxaad u baahan tahay inay meel fiican degaan waxaasoo dhan waa inaad ku dadaasho si maysir lahayd taa macnaheedu ma aha waxaad haynin isku dil ma aha laakiin waa inaad leedahay ah in ilmahaagu ay meesha u fiican ku noolaadaan sida u wanaagsan ee heli kartana ay wax u bartaan inaan ahaano qoys guuleystay oo diinta ku dhagan amaana shaqada yani qofku waa inuu shaqadii amaano waa inuu shaqadii yahay waa in caruurta iyagoo yar lagu dhiirigeliyo inay shaqaystaan inay wax qabsadaan inay wax noqdaan inay asaagood la tartamaan hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto hanti iyo hadday noqoto sharaf qof markuu wanaag sameeyo ama uu horumar gaaro ama uu buundo fiican keeno in abaalmarin la siiyo ilmihii in wanaag uu sameeyo run markuu sheego abaalmarin sii markuu quraan xifdiyo abaalmarin sii marka uu hadal wanaagsan dhaho abaalmarin sii waxaad bartaa in qofka markuu wanaag sameeyo wanaag loogu bedelo qofka in lagu dhiirigeliyo hal abuurku in lagu dhiirigeliyo haddaad aragto caruurtaada mid ka mid ah oo hal abuur leh soo gado buugta sida loo hago ilmaha hal abuur kale ee hibada leh ilaahay siiyey hibada ha ahaato wax qorid ha ahaato wax akhris ha ahaato hibo aqli ha ahaato inuu ku fiican yahay xisaabaadka wixii doonay ahaato ilmahaaga hibo leeyahay waa inaad garan karto qaabka loo hago hibada waa inaad garan karto waxyaabaan u socono waxaa ka mid ah ee qoyska ay u socdaan in khilaafkoodu ay hoos u xalistaan waxaa la dhahaa gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaa khilaaf kasta oo guri ka dhaca noloshu khilaaf kama dhammaanayso nin filosofa wuxuu dhihi jiray nolosha adduunku mar walba khilaaf u dhacaya saa darteed waxaad guursataa ninkuu la hadlayay gabadh aad khilaafka dul qaadan karto marka hore waxaad guursataa gabadh aad u jeceshahay oo khilaafkeeda iyo dhibka iyo waxaas oo dul qaadan karto markuu dhibka dhacana waa inaad idinku xalisataan isla fadhiisataan aad gorfaysaan aad xal gaartaan kadib meesha wuxuu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay nin baa wuxuu ka shaqaynayay meel buu ka shaqaynayay maalinkii dambe xaaskiisa walaalkeed ayaa wuxuu soo ogaaday inuu ninku qaato laaluush ninkiiba u yimid gabadhiiba u yimid markaasaa wuxuu yidhi ninkaaga wuxuu qaataa laaluush aad iyo aad bay uga xumaadeen markuu guriga yimid ba waxay tiri niyahow ma runba inaad laaluush qaadato markaasuu yidhi haa waxay tiri maxaa kugu qasbaya waxaa igu qasbaya mushaarka aan qaato masruufka reerka iyo waxbarashada caruurta kuma fillo sidaa darteed waxaan u baahanahay si aan u helo masruuf iyo waxbarasho iyo caafimaad inaan qaato laaluush dhammaanta kala shaqeyna way qaataan waxay tiri ma qaadanaysid aniga iyo ilmahaygu xaaraan ma cunayno intuu ilaahayna siiyey aad nagu kaasoo dhiibaan nagu filan reerka o dhan baa shir isugu imaada waxaa la yidhi see baan arrintan u samayn karnaa waxaa la yidhi kow horta adu maanta ballan qaad inaadan dib dambe ugu noqonaynin laaluush aadan qaadanin waa yahay hooyadii waxay samaysay guddi 3 carruurta ka mid ah waxaa la yidhi aabihiin ogaada oo mutaabaceeya in uu iska daayey iyo inuu iska daynin waxaa la rabaa in ninkii dabeecadda loo soo celiyo waxay tiri qodobka kale waa in reerka wax allaala waxaan daruuriga ahay dhan aan iska dayno waxaan soo gadanayno ama aan isticmaalino waa inuu yahay waxaan u baahannahay oo dhab ah yacni gogol iyo aradbax iyo cunto iyo cabitaan iyo waxaan u baahannahay waa inuu ahaado waxyaabahan u baahanay dhan waa inaan iska xirno waxay tiri carruurtii waaweynada jaamacada dhiganaysay xilliga jaamacaddu fasax tahay waa inaad shaqaysaan gabadh waxaa ku jirta computerkeeda si fiican u taqaana gabadhi waxaa la adoo guriga jooga shaqo raadso shaqo heshay carruurtii shaqo heleen waxyaabihii oo dhan way iska yareeyeen aan muhiimka ahayn reerka waxay noqdeen reer wanaagsan oo xalaal ku nool oo faraxsan noloshoodana dabara waxaa loo baahan yahay marka in khilaafka la xaliyo laysu imaado la gorfeeyo hal wanaagsan loo gaari lahaana laga shaqeeyo qodobka u dambeeya waxaa weeye markaad intaa oo dhan aan soo sheegnay aad qabato oo reerkaagii aad si fiican u shaqaysato carruurtaada ay tarbiyaysato reerkii aad isjeclaataan qaraabada aad xiriiriso aad run sheegto aad noqoto deeqsi oo aad noqoto qoys guulaystay
hafadhiine dadka islaamkana hawsha gaarsiin caruurtaada ku tarbiye inay wanaaga ay dadka gaarsiiyaan ku tarbiye in ilmuhu ay dareemaan inay leeyihiin wax wanaagsan oo ummadda u sheegaan in wixii ilaahay ku siiyey ilaahay ku garsiiyey aad dadka gaarsiiso intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta ee golaha buugaagta inta aan mar kale kulmayno amaano Allah